بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال إلهي سبحانه وتعالى بمهضله مهضة إلهي كذب waxaynu isxasuusinaynaa naftayda iyo naftiinaba kelmad aan jeclaystay runtii inaynu isxasuusino oo aad iyo aad muhiim ah. kelmadaasi waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala in cabsi runa oo dhaba ilaahay laga cabsado subxaanahu wa ta'ala, oo ilaahay laga cabsado markaynu ilaahay cabsi dhaba ka cabsanana wuxuu ina siinayaa abaalmarin aad iyo aad weyn. oo talow waa maxay abaalmarintaas? axad saalixiin dadkii wanaagsanaa mid ka midaba waxa uu leeyahay alla badana macsiyo aan u qalab qaatay oo isiriyo xumaan iyo dambi aan isiri samee, oo dabeedna markaan u dhaqaaq joogsaday aan xasuustay ilaahay subxaanahu wa ta'ala, aan xasuustay aayadan quraanka talo waa aayadii waa aayada rabbi leeyahay subxaanahu wa ta'ala waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan. qofka ilaahay cabsi dhaba ka cabsada waxa uu leeyahay janno weyn buu leeyahay, laba janno leeyahay. labada janno ee rabbi oo aayada ku sheegaya waa laba janno oo lagu helayo oo ay ku xiran tahay qofku cabsida uu ilaahay ka cabsanaya nooca ay tahay, ilaahay weynidiisa uu ka cabsanaya siday tahay. qofka ilaahay cabsi dhaba ka cabsada subxaanahu wa ta'ala inuu helayo laba janno oo rabbi inoogu sheegay subxaanahu wa ta'ala. waa aayad weyn, waa aayad ballaaran iyada iyo aayaadka kale markaa la midka ah. waa aayad haddii duruus badan laga diyaarin lahaa maanta aan laga gayoonayno aan la dhammaynaynin. waa aayad runtii ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu inoogu tilmaamay laba janno oo heer sare ah, laba janno oo waaweyn, laba janno oo meel sare ku yaala laguna kasbanaya ilaahay cabsi dhabayn markaa laga cabsado. cabsidaasi ayaa waxaynu tilmaamaynaa waxa laga helayaa laba arrimoodba aayadda waa laga qaadanaya ama saddexba. qofka ilaahay si dhaba uga cabsadaa waajibaadkiisu la yimaadaa sidii loo diray oo kale, maxaarimta iyo xumaanta iyo dunuubtu ka tagaa sidii rabbi uu faray inuu uga tagaa. wuxuu markaasi la yimaadaa wanaagga iyo khayrku u degdegaa, samayntiisu u degdegaya. idan qofka qalbigiisa ay ku weynaato cabsida ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa qofka sifaadka iyo muwaasafaadka leh. abaalmarintuna adduunna waa jirtaa, aakhirana waa jirtaa. ya rabbi waxa uu leeyahay ina aladiina yakhshawna rabbahum bilghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabiir. qofka ilaahay ka cabsanaya markuu keligii yahay ee aan bini aadam arkaynin, ilaahay intuu xasuusto iska eegaya waxa uu leeyahay dembi dhaaf weyn iyo ajir aad iyo aad u ballaaran. ajirka uu helayaa waa maxay? waa ajir adduunyo iyo mid aakhiro labadaba. waa janno iyo dembi dhaaf, waa naar ilaahay oo laga badbaado iyo kuwa la midka abuu ku helaya. dadka sidaa yeelaya waxay leeyihiin oo markaa helayaan oo rabbi uu tilmaamaya tabaaraka wa ta'ala sifaad bay leeyihiin. oo maxaa tilmaamahooda ka mid ah? fii suurati almu'minuun rabbi waxa uu leeyahay ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun. waa kuwo ka warwarqaba ilaahay cabsidiisa markay ka cabsanayaan ee alla xasuustaan ayaa warwar bay qabaan, warkutaallay qabaan, waxay ka warwarqabaan talow ma laydin aqbalay, talow ma laydiin dambi dhaafay, talow cibaadadii nimeeday, talow bay leeyihiin. waxaa kaloo ka mida waladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun. aayadaha ilaahay waa kuwa rumeeyey oo marka aayad ilaahay loo sheego qalbigoodu wajila la imanayo. waxaa kaloo ka mida tilmaamaha ay leeyihiin waladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuuna waladiina hum birabbihim laa yushrikuun. waa kuwa rabbi subxaanahu wa ta'ala cibaadadiisa aan cid kale waxba ka siinin, si khaalisa oo ilaahay keliyeelida bay ilaahay u caabudaan subxaanahu wa ta'ala. waxaa kaloo tilmaamahooda ka mida warwar bay qabaan oo quluubtoodu waxay ka warwar qabtaa talow marka khayr loo sheego kuwa wanaagga helay miyaa tihiin mise ma tihidin, kuwa la aqbalay miyaa ka mid tihiin mise ka mid ma tihidin bay warwarka qabaan. waxaa kaloo ilaahay uu yidhi subxaanahu wa ta'ala ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat wahum lahaa saabiquun. waa kuwa khayrka u degdeg badan leh oo weliba haddana u dheeraynaya oo marka tartanka khayrka loo tartamaya ee dadku u kala dheeraynayaan ee cibaadada la isugu baaqo ee khayrka la isugu baaqo ee wanaagga la isfarayo
iyagu safka hore kaga jiraan wax walba salaada safka hore kaga jiraan soomka xagga hore kaga jiraan sadaqada xagga hore kaga jiraan zakada xagga hore kaga jiraan xajka xagga hore kaga jiraan qaraabo xiriirinta xagga hore kaga jiraan waalidka iyo samafalkiisa xagga hore kaga jiraan wanaag oo dhan wax ugu horeeyaan kelmadeenu waxaan ku soo koobayaa walaalayaal marka oo aynu ku urursanaynaa waa kelmad ballaaran laakiin waynu koobanaynaa oo waynu isxasuusinaynaa oo kaliya qofku marka uu aayaadka ka dab qaato ee ka dhimbil qaato ee qalbigiisa galiyo maskaxdiisa galiyo ee uu noqdo qof aayaadka Ilaahay ku tadabburaya ee Ilaahay cadamadiisa arkaya waxay u diidaysaa ay ka hor istaagayaan inuu xumaan sameeyo waxay ku dhiiri gelinayaan khayrka sameyntiisa waxay farayaan inuu khayrka u degdego inuu wanaagga u degdego wuxuu noqonayaa qofkaasi qof Ilaahay run u sheegay kana run sheegay waxa uu sheegtay inuu Ilaahay ka cabsanayo subxaanahu wa ta'ala ka run sheegay adoonnimada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu sheeganayaa oo uu ka run sheegayaa inuu si dhaba u leeyimi wixii uu Rabbi faray si dhabana uga tagay wixii Rabbi u diiday tabaaraka wa ta'ala arintaasi markaa waa arin qof walaal muslima inuu isku miisaamo u baahan inuu miisaanka isku saaro u baahan inuu markaasi noqdo u baahan kuwa laga rabo khayrkana markaas u degdego ilaahina wuxuu aynu ka baryeynaa inuu inagu anfaco kuwa awaamirta qaatanay naga dhigo wajazaakumullahu khayran wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in